nuurow dhinaca magaalada hargeysana waxaa khadka inoogu jirta fanaanada hiruuta degla haymanot waa fanaanad asal ahaan u dhalatay dalka Itoobiya hase ahaatee Soomaaliga si wacan ugu heesta anuu waxaan ku soo jeedaa waxaan hay gabadh ay fiirayaan ay fiiriyaan وأصلا أصلا يوم حالي لا هو مثل كل أكتيفية قبل وأنتهى إسماعيل وشركة أنا نجوا بالسوق لا هي برنامج كأي سبوع قدونا وحن كلون نجستياش وهينا أي برنامج كم مقدونا سيدا الصومالي ده هو كل جديد دلالك شينها ماليزيا مصر إندونيسيا فلبين كوفرت السودان أمريكا إنجليز كي تركيا qodobadaas iyo kuwa kale ayaa idinku haynaa barnaamijkeena ciidda oo idinka imanaya Washington arday joogta iskuulka odayaal talinaya arday joogta iskuulka nuurow barnaamijkeena haddaan gudagallo ciidda dhinacaas iyo xiriyaha qaxootiga ee Dadaab ayaan haatan u kacaynaa oo wariyaheena VOA Axmed Nuur Yogol uu ku sugan yahay arrimaha laakiin xiisaha leh waxaa ka mid ah fanaan aad u cod macaan oo mar dhaweydba adiguna aad dhigaha u raadicinaysay aad iyo aad Ismaaciilow fanaankaasi aad ayuu igaga yaabiyey dabcan haddii uu sidaa ku sii socdo waxaan filayaa in uu noqon doono fanaan weyn oo wacdara ka dhigi doona saaxadda fanka Soomaalida marka wariyaha VOA ee Dadaab ayaan u deenaynaa sheekada dhageystayaasha ugu hordhici mayno Axmed Nuur Yogol ayaa la kulmay Cabdullaahi Nuur Weheliye iyo qaar ka mid ah fanaaniinta ku nool xiriyaha Dadaab mahadsanidin Ismaaciil iyo Nuur ciid wanaagsan maanta waa maalin ciida barnaamijka ciidda ee Washington iyo Dadaab ka soo gudbinayno sheekooyin xiiso leh ayaa dhinaca Dadaab inooga haya waxaa maanta marti inoogu ah barnaamijka kooxda Hubaal Isbaandi ee xiriyaha qaxootiga ee Dadaab waa fanaaniinta kala Cabdullaahi Weheliye Canshuur Baabe iyo Saciid Xuseen Maxamed Kajal in badan ayaa ka daasheen dhinaca muusiga maanta si dabiici ah oo bilaa muusiga oo heeso wanaagsan oo dhinacyo badan taabanaya ayaan halkan idinku haynaa xiriyaha qaxootiga ee Dadaab ugu horeyn Cabdullaahi ciidan maanta ummadda markaasi muslimiinta gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed aad ugu tala gasheen maalinta hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan ugu tala galnay hees oo dalka Allah nabad ku soo celi aan leenahay iyo majaajilo yar oo aniga iyo kaajil aan isla jileeno hadduu Ilaahay yiraahdo heestaasi Allah dalka nabad haddii aad ku bilowdaan Allah anagoo isku duuban Allah dan wadaagna aan nahay Allah durduradu ragmanayaan Allah dalagiina noo baxay la 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 الله نودر رمكنا الله دبيدينا برسمي الله نمعدا تدورتا الله ديغ ذا دويا الله 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 دول حاسدا جرا الله 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 دبشي ذي برواقي الله 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 دنبي داف نسيو الله دنبي داف نسيو الله دلك نبات كسوعي وياهي aad baad u mahadsantiin Cabdullaahi iyo sidoo kale Saciido Cabdullaahi waxaa jirta hees sahri oo in badan markaasi dhalinyarada ku nool xiriyaha qaxootiga ee Dadaab iyo weliba Soomaali fara badan oo dunida dhaafayda joogtay aad u dhageystaan markii heestaasi Cabdullaahi haddii aad dhageystaasina dhageysanaya ciidda ugu dheeraad u qaad sidii limuday soo sheemaani sinabay ogaaw sansur iyo ka samreys suuban walkii tilmaame sansur iyo ka samreys suuban walkii tilmaame samantooda raac sinabay ogaaw sanjishe masuulaaw masuulaaw sanjishe masuulaaw sabariyo sabuu banaanba habla suubankii dhaaftoydhe sikareed maduugaaso sixulmin dareeraaso latashay ahayneenba sanjeemii suraasowdhe sodado injeedoona sasheenindhikaasoydhe sabaraa la taahoydhe nin sabramayaasiime ka jalay ogaaw baayay siciidoy ogaaw baayay ka jalay ogaaw waayahay Cabdullaahi Saciido aad baad u mahadsantihiin runtii waa heeso xiiso leh weliba
qaybo ayaan ka dhigi doonaa qaybta dambe ee barnaamijka ayaan heesaha qaar ka sii wanaagsan oo welibana codkan iyo cod ka wanaagsan ku qaadayo ayaan mar dambe dhegaystayaasha maqashiin doonaa haatanna nuur xasan nuur maxaad inoo haysaa ismaaciilow dhegaystayaasha sida aan horeyba kugu sheegnay waxaan barnaamijka ugu haynaa fanaaniin aan kala dhicin fanaaniintaasi kuwooda ugu culus waxaa ku jira fanaanka weyn ee soomaaliyeed salaad maxamed shardi salaad derbi khadka telefoonka ee gobolka minnesota ayaan goordhowed kula xiriiray sheekadan ayaana dhex martay waayahay ciid wanaagsan ayaan ku leenahay marka hore kulli caam aan ku biray ciid wanaagsan ilaahay kala kuxiga anooladhigu kuwa kasii wanaagsanaa wixii wanaagsanaa waa kaa qaadnay ducadaadana allaha noo aqbalo bal ciidan minnesota ayaad ku ciidaysaa ciidihii dhawaa ee ka horeeyey goofki jiray halkaasaad ku ciidaynaysa meelo kale ciidahan intii 2 sano lasoo dhaafay halkaan ku ciidayay oo ciidii jeeshada sanooladii ka hor soomaaliya markii aan tegay waaye 2 sano lasoo dhaafay tobanka iyo sanadkan tuuga iyo 99kii 2019 wixii ka dambeeyay xaggaasaa waa yahay bal inta aanan u gudagelin heesahaadii cajiibka ahaa oo dad badan oo Soomaaliyeed ay jecel yihiin anigana aan ka mid ahay dadka aad u jecel heesahaaga yaad jeceshahay in munaasabadan ciida darteed aad salaanto lama waxaan salaamayaa asxaabteydii hore dadka Soomaalida meel joogto waa salaamayaa ciid wanaagsan aan leeyahay waxa kaloo leeyahay salaamayaa carruurtayda meel joogtoba anugu Amerikaan u badannahay oo tobnayaan ku joognaa Amerika laakiin London iyo Holland ayaa inta kala jiraan marka kulligood waan salaamayaa carruurtayda waxaa kaloo salaamayaa asxaabtayda inta Soomaaliya fanaaniintaydu waa beri ilaahay waxaan ka baryayaa intaan ciidda ku xigta inay nooga sii fiicnaato in dalkii noo dhismo in nabadii ay soo noqoto ilaahay ka tuugaya sanadka kuxiga inaan wada ciidno farxad ku ciidno Soomaali meel ay joogtoba maanta waan salaamayaa khaasatan biyada wadayaasha salaad derbi waa mahadsan tahay dhinacii heesaha haddii aan aadno heesahada dabcan aad ay u badan yihiin oo laguma soo koobi karo hal barnaamij marka laakiin anigu waxaan jeclahay oo aan aad u dhageystaa marka ay timaado heesaha aad adigu qaado heesta dalmar oo aad la qaado allahu naxariistay xalimo khaliif magool marka heestaas haddii aan ku horumarno waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo waqtiga la qaaday qofka alifay iyo qofka la xameeyey bal nooga dhac intaas waxay soo baxday 1968 si anugu agi koodiyey codkaygu waa yarahay 14 jirka bilaay fanku ila dadaalo kale baasa goodaya laakiin kan markaan nin weyn noqday waayo 68 waaye heesta niidka anigaa sameeyey laakiin macalkaaliyaa waxaa sameeyey macalkaali waan ka weynaa waa sidaas waayahay marka heestaasaan dhegaystayaasha u ciyaari doonaa haddii aad in yar ka xasuusiso dhegaystayaasha bilowga sida ay ku bilaabanayso oo kale inta waa la naqaan aadna way la tegey oo soomay maalmahan halkaas kusii qudbarka adag aniga dalbado isla doonta dhibkee matabaalana qaan dadna way la tegey iga sii daray doorsoomay maalmahan sidanaan daysnay
waan gartay heestaas ugu dambaysay waraysiga bannaanka weyn ee Salaad Derbi haddaan intaas kaga nimaadno iyo waraysigii uu la yeeshay wariyaha VOA Nuur Xasan Nuur Bukhaari عيدا 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 وعيد ونكسر عيدا 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 وعيد ونكسر عيدا وماذا إسلامكم سماكم عيدا وماذا إسلامكم سماكم عيدا وقتها عيد ونكسر أيام أننا هودنا كلنا هاي دقيستيال البرنامج كان قارجع عيدنا ولي فريق كما قلنا ان هذه عاد مقل جرتي فنان صومالي وهيسها عرفت اما هندية وحان برنامج كمانتي بكوهينا فنانة فضلت في دلك اثيوبيا وكوهيستا ولي بس انا عادي انه هيسها صومالي اسماعيل ايان جعلها انا بداية انت نهض نورو فنانة waxay ku dhalatay dalka Itoobiya gaar ahaan qowmiyadda Tigreega ayay ka soo jeedaa Hiirut baa la yiraahdaa khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa ayaan kula hadlay arrimaha xiiso la sheegtay waxa ka mid ah marka waxaan salaad salaam nishi uga bilowaan salaafki Itoobiya laakiin waxay ugu tiri xagga afka Itoobiyaanka aad isugu wanaagsan xilligan oo xaggii Soomaalida ayaa soo jiitay marka sheekadii aniga iyo Hiirudna dhex martayna waa tan waaye bal aan wada dhageysana anaga dhageystayaasha Hiirud xaklaawada ayaa la yiraahdaa magacayda kolay Soomaalidu magacan ama aniga u baran inuu ku naqdanayo malaha dadka ka hor qolkii fayraha magacayda Hiirud xaklaawada ayaa la yiraahdaa miyana kuula bixin Soomaalidu magac Soomaaliya oo la iska kayo inuu sida qamar iyo ya والله وين صار يعني إذا كان هون نبغى عقاري حتى باي هون بين هذا لكن مقعيب بدون بس كله يضخوا قلوا مقع يا لا كل يقول هذا هو يستبدل مع الفروت كي معاك في عسل مبيرة هي أطالبوا حاجات على شعاق سويتها بالضبط كده دو شكلين نبغوا بناء أنا حاجة كذا وحنهاي جواب التجربة التجربية وصار صراحة تجربة يوتيوبيان حتى رأس Soomaali كي كبر يصدق طبعا هذا Soomaali هو ده Soomaali هذا هو دينعي صوية صور عادي وقت Soomaali دينعي عوية كسر عادي ها so وقتي هو أصله يمحلي هذا هو مثل كل أكيد قبل كذي sidee baad isugu dheeli kartaa dhaqankan Itoobiya iyo waxa jira Itoobiya qowmiyada leedahay Tigreega iyo meelaha ka soo jeedin iyo dhaqanka Soomaaliga marka qaarkood ku adkaadaan inay isku dheeli sidee ma dadkii simooyaan afkaygi Tigreega kuma hadlo dhaqankoodana kuma badni sababta la yaqaan Soomaaliyeed oo ay hooyaday raacay afka Tigreega kuma hadlo لكن قد يسوي هاي يسوي هاي حاجة حرينا معها قطعنا هاي يدي كان هاي قنطرة صغيرة heesa badan baad leedahay dadku aad bay u jecel yihiin heesta aad markii ugu horeysay aad fanka iska yar